السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وان إذين سلامي انت يسوقنا تيردين تسلامتا وحن إذين سوقد بنيا خسو آنات وليا بي آدنا إي عجب قليسي جعلاضينا إنان إذين لبذاقو خسادا نوحيكو بلاواني ساسيدة هويني فقيرة أياروتي مالين والبؤسمين جرتي أهل كيذا wiilkeedii weynaa ayaa wuxuu u safray si uu u soo shaqeysto mustaqbal wanaagsanna u dhisto markastana waxay ugu duceyn jirtay inuu tawfiiqda alla waafajiyo iyo inuu alle nabad ugu soo celiyo si uu alle ducadeeda u aqbalo waxay go'aansatay inay rootiga dubistiisa ziyaadiso ayna siiso safarleyda waxay saari jirtay daaqada si uu u qaato qofkii u baahan maalin kastana nin faqiir ah oo tuur leh ayaa qaadan jiray intuu uu mahadcelin lahaa haweeneydii wuxuu aqrin jiray xadiidkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo ahaa صنايع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفي غضب الرب هوeeneydii ma fahmi jirin waxa uu dhahayo wayna ka xumaan jirtay maadaama uusan u mahadcelin jirin maalin maalmaha ka mid ah ayay go'aansatay in ninkii faqiirka ahaa inay u dhammayso micnaha ka takhallusto oo disho rootigii ayay sun ugu dartay waxayna rabtay inay daaqadii saarto markaas ayay gacanteedii gilgilatay allana dembi dhaaf weydiisatay rootigana dabka ayay ku shubtay rooti kaloo cusub ayay samaysay daaqadii ayayna saartay sida caadada ahayd ninkii ayaa yimid rootigiina qaatay isla hadalkii ayuu ku celiyey wuuna iska tagay isagoon ogeyn waxay haweeneydii samaysay isla maalintaas markii ay rooti dubidda dhammaysay galbihii oo kale ayaa albaabka wiilkeedii soo garaacay isagoo daal ka muuqda isla markii uu arkay hooyadii waxa uu ku dhahay masaafo aad u dheer ayaan soo socday markaas ayaan aad u daalay gaajo xunna i qabatay waan dhiman lahaa hadduu ninkaas suurta leh ahaan lahayn ninkii ayaan cunto weydiistay nin aad u fiican ayuu ahaa rooti ayuu i siiyey wuxuuna iigu dhahay maanta cuntadan intaas ayaan haystaa laakiin adiga ayaa iga baahi badan waan ku siiyey hooyadii markii ay maqashay hadalkaas isla markii dhulka ayay ku dhacday waxayna soo xasuusatay rootigii sumaysnaa oo ay maanta subaxii samaysay waxayna dhahday rootigii haddaan gubi lahayn maanta wiilkayga ayaa cuni lahaa wuuna dhiman lahaa waxayna wiilkeeda u sheegtay waxa uu dhihi jiray ninkii faqiirka ahaa waxayna dhahday maxaa laga wadaa wiilkii ayaa ku dhahay waa qowlkii nebiga sallallahu alayhi wasallam micnihiisuna waxa uu yahay khayrka aad samaysid adiga ayuu kugu soo laabanayaa shartana wuu kaa badbaadinayaa hooyadii alla ayay u mahadcelisay waxayna bilowday ninkii faqiirka ahaa inay u naxariisato waxayna wiilkeedii ku dhahday markasta khayr waan samaynayaa xitaa haddaan laygu qadarin maxaa yeelay maalin maalmaha ka mid ah ayaa alle igu abaalmarinayo adduun ama aakhiro